kulan wacan daawadayaal halkan waa shabakada Heega News ku soo dhawaada wararka waa taariikhda ku beegantahay kooda bisha 9 sanada 2019 war ka soo baxay maamul goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay inaysan saameyn ku yeelan doonin go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu soo rogtay xayiraadda diyaaradaha tooska ah ee u taga magaalada Kismaayo war saxaafadeed ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay inaysan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruudaha dalka go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay gaartay ee doorashada Jubbaland iyo duulimaadyada magaalada Kismaayo go'aanka ka soo baxay golaha fulinta iyo wasaaradda gaadiidka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa duulimaadyada diyaaradaha ee Jubbaland iyo doorashada lagu tilmaamay mid sharci darro ah waa mid aan waafaqsanayn dastuurka shuruudaha dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka Jubbaland qoraalkan ayaa lagu sheegay in Jubbaland ay iska difaacayso ficilada dawladda federaalka waxaana lagu baaqay golaha shacabka iyo aqalka sare inay qaataan kaalintooda doorkoodana ay ka ciyaaraan lana xisaabtamaan dawladda federaalka hadalkan ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaana waxa uu ku soo aadaya xilli wasiir ka tirsan maamulkaasi Jubbaland gaar ahaan wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan la sheegay in lagu xidhay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho wasiirka ayaa la sheegay inuu tarasad ku ahaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde kadibna la sheegay in ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen xabsina la dhigay warar kala duwan ayaana ka soo baxay xiriga wasiirkaasi oo la sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay xidhay maamulka Jubbaland oo la hadla qaar kamid ah mas'uuliyiinta warbaahinta waxay sheegeen inaysan warkaasi xaqiiqdiisa ahayn balse ay ka warsugi doonaan jawaabta iyo waliba waxa ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ee la sheegay in xidhay mas'uulkaasi ka tirsanaa maamulka Jubbaland mid kamid ah wasiir ku-xigeenada xukuumadda Soomaaliya oo qoraal soo dhigay barta Facebook ku leeyahay ayaa sheegay in wasiirkaasi la xidhay xabsigana la dhigay dambiye kala duwan lagu soo oogay wasiirka amniga maamulka Jubbaland midan ayaana u muuqata mid sar u sii qaadaysa khilaafka u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya horay ay u sheegtay inaysan marnaba aqoonsan doonin natiijo walba oo ka soo baxda doorashada maamulkaasi Jubbaland ka dhacday inta la xaqiijiyay 3 ruux ayaa ku geeriyooday in ka badan 110 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari nooca loo yaqaan waraadka oo taariikhyaal Itoobiyana siday uu maanta ku rogmaday deegaanka Tawakal ee galbeedka degmada Xingalol ee gobolka Sanaag gaariga noociisa lagu sheegay waraad ayaa siday 150 ruux oo ka yimid dhanka Itoobiya doonayeen taariikhyaal inay galaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari goobjoogayaal ku sugan Tawakal ayaa sheegay in gaariga rogmaday oo ka yimid dhanka Itoobiya taariikhyaal shaasi uu siday kuwaas oo sii jeeday dhinaca magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari isla markaasina saarayeen in ka badan 150 ruux oo Itoobiyana gaar ahaan qoomiyadda Oromada dadka dhaawacmay ayaa haatan waxa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Xingalol waxaana la sheegay in ugu yaraan 15 ruux ay dhaawacyo halis soo gaareen kuwaas oo xaaladooda laga deerinayo sida uu sheegay agaasimaha isbitaalka Xingalol Cabdirasaaq Cabdullaahi ayaa warbaahinta gobolka Sanaag la hadlay magaalada Boosaaso ayaa hore waxa lagu xiray taariikhyaal Oromo ah kuwaas oo doonayay inay ka sii dhoofaan Boosaaso dibna loogu celiyo gudaha dalkaasi Itoobiya warar dheeraad ayaa ka soo baxay kooxo hubeysan oo xalay magaalada Muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Argentina ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir isla markaasina waxa wiilka dhalinyarada ahaa u geystay rag wata bastolada isagoo oo geeriyooday goobta oo falkaasi ka dhacay sidoo kalena kooxii ka dambeeyay falkaasi ayaa goobta iskaga baxsaday si degdeg ah sida ay noo sheegeen dadka deegaankaasi wararka aan helna ayaa waxay sheegayaan in marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cadaawa Cabdullaahi Faray isagoo ka mid ahaa dadka deegaanka xaafadda Argentina ee degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho wararka ka baxsan Soomaalida markan hadii aan fiirinana wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in Mareykanku uu ku fashilmay inuu hor istaago shidaalka ay dibadda u dhoofiyaan wasiirka arrimaha dibadda Iran Mohammad Safaj ayaa sheegay in dawladda Mareykanku ay isku dayay inay joojiso shidaalka Iran ay u dhoofiso dibadda iyagoo oo adeegsanayay handadaad wasiirka ayaa sheegay in caqabadaasi aysan ka hor istaagin in ay sii wadaan ganacsiga iyo dhoofinta shidaalka Mareykanka ayaa waxa isku dayay inuu hab burcadbadeednimo ah uu ku joojiyo kuna xaqiijiyo shidaalka balse waxa diyaar nahay in ganacsiga dibadda aan wax ka iibino ayuu yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran
hadalkan ayaana waxa uu ku soo aadayaa bilown kadib markii sare ay u kaceen xiisada colaadeed ee u dhaxaysa wadamada Washington iyo Tehran. daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay daawashada channelkan subscribe dheh videogana like saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagu soo biir oo subscribe dheh gambalaalkana taabo.